sida qof la muslimiina iyo kale diinta islaamka daba waxa duusaaqo waa ku dhibsama ba waxa tiraahdaa Allahumma irham goroda fi qaburi nururina waxaan markay ilaaway ninkii aan gaargacankii iyo ninkii aan isku roon alaabta u saaray markuu kan sawootiyo kaxay meeshii la rabay geeyo soo noqo in ay raahdo kiina waa soo noqon waay magaalada ku soo noqon waay anna waa iska ilaawayna ninkaas soo ceshay والسلام عليكم صاحب بيان إذا هنتي بمركز الدنيا الدعالية إذا كتشوكته waxaan idin ka soo salaamana oo ku sugannahay gobolka Mudug gaar ahaan degmada Jariiban waxa dhinacayga fadhiya rag u jeedaan abwaanki degmada Jariiban waa mursal arfee iyo sidoo kale saaxiibkay in Cadaani Cadaawe in Aliya Ciise rag la jimiina galabtan afkooda noo furi doona barnaamijyo sheekooyin qosla iyo gabayo abwaanki baa dhinaciisa fadhina hadal badan iyo tafsiir badan iyo ma eka marakan hay abwaan mar hadaan imid inaan marka xabad sheeka qac ka siiyo waa ku khasbanaa khasbanta aad marka ninba waxa la yiri reerkiisa dayacay marka goorta reerkiisa dayacay islaantii iyo arigii iyo reermihii ahaa ninku marka reerkiiba ku dayacay iska tagay magaalo iska aaday yaanbo maqnaa muddo hadii ay islaantiina ayadii xoolihii waxay la ahaantaa wulifto iyo waxay magaciisay iyo markii dambe habeenkii dambe u yimid markaas ay cayrisay waxay tiri yaa u socotay xagee ka timid reerkii يا أم غليظ يا أم غليظ ويحا أكون غليظ هذا أكون غليظ بيتي يا عيرس وسكت تجي سوق وحيلات قرمه ولا يقدر ليه وأنا حولي ضيعي ريركي وصافر يستي مال جرج أكتسا بوس كفريست جرج أرداعي حاجة وشدة بوس كفريست اللي يقول عيني عرض بتشوكري سانت عرقة دي يسكح رئيسة عيال كي سيحصت قلتي حرد كصعب بحضي بوحي هاي كاري ويأتي واحد يصير مرتلو ما كفر الدهر محمود سيتري وركاكا ما يقول يدا نا أباها وحنو أخري بقول ولا أخري جدًا أباها بقول ولا بقول أخري جدًا بي وكان جدًا هاي دم بيجي سلا داف لا قبل يقول نور لا سيأتي ساكتير وهو marka waxa weey nawaay waxaan rabaa falag si meelaha aan waxa weeyaan dusha iska saar qabowga ka seexad markaas walaal guriga soo galbaa lagu yiri hada guriga aad soo galbo war baa yaal xalaad baaba wixii dhamaan magaciisa waqaf afku u buuxo abeeda boqol qolo ku soo hada waxa ka soo waday maanta waxa weey horta sheekada gabanta hayay aad iyo aad abwaan waxa jirtay aan ka dhaxgala sheekadaade sheeko hadda ka hor badan maqlay oo ahayd sheekada gaargacanka oo sooyina ka samaysay baa jirtay marka tafaftirkeeda iyo maasada waxay ku timid iyo qaabkeeda iyo nootur xambixi ma sheekaas waxay ku timid qof wuxuu ahaa aan laga maalmino degmada hadaad sii joogtid horta in aska hor imaanaysa mar kasta waxa weeye qof aan mudanaysibu ahaa marka qof dhibayna wuu ahaa dhowr jeer inta u tagay oo la kodlay oo buu wax barnaamijka rabay iyo wixii waxaan ahayn iyo qaabab kale oo la dhaqmay marka waxaan sir qofkan inaad duusaan asaguna uu yahay adiguna magaaladina uu kula degan yahay dabcan in adigu guulidiyeen asagu guuro wax ka dhaxaynaya ma jiraan ninka degmada ku wada nooshay degmada ku wada noolay waa nin mas'uul ah marka nin mas'uul ah marka waxaan iri waxa ii soo baxday qofka inaan raro haddana waxa ii soo baxday inaan baabuurta dheeraysa iyo qofkan aan la saari karin gaari gacan aan ku raro qofkan hayo qofkan marka qaabka u raraysid ma waxa ku raraysaa dad baa u diraysaa mise maaso way waxa ku raraysaa gabay gabay baan ku rarayaa waa gartay marka gabay baan ku raraa waxa ila Allah samada ii soo fur saaka waa subax isniinaad ee muslimu sawtiya qof baan saaka rarayaa ya saada sabarka weyn oo adigu salabka soo qaado surinka ka timid baa sadcaal ugu baxaysaaye baabuurra sayruuq ah oo suuqa wada tuuran sukay xasad baa to adiga kuma soo wado أحمد باسعيد وقف يوصحي كسي قادو سنقصانق بان كلها ربايا الصبح بميل تورو حاس كلها صفون يمركي سين مدى دافتيت سنكرو وكل عسي حنكري ويد حتى الصمد وفرنت هاي ساكب بلامين دي ماي تطبات كي وقف كي بحي waxaan markay ilaaway ninkii aan gaargacankii ninka aan isku roon alaabta u saaray markuu kan sawootiyo kaxay meeshii la rabay geeyo soo noqo in ay raahdo kiina waa soo noqon waay magaalada ku soo noqon waay anna waa iska ilaawayna ninkaas soo ceshay
isaga gaargacankiisa qadka ka baxay miskiinka oo sheekadu laba nin bay ahaydo nina waa ninka gaari gacanka lahaayo wax lagu rarayo nina waa ninka raraysi nina waa ninka rarayay oo marka labada nin ba adu kii gaariga lahaa iyo ninka asaas noqon waayeen marka oo waxa rabta marka in hal nin artid adu hal nin baa rabay inuu tago midna uu noqdo ninka transitka goortan ninka transitka soo halka qofka baabuurka ma raaco goortu galka ay geeyo Soomo qofkaas magaalada iskama gala kana ma soo noqdo wala waa wadada baabuurka shaqeeyay ma ogtahay ama duu rabay jiriibana uu soo inuu ka soo noqdo aan iraahdo ma ahay soo noqodi ma ka ilaaw labadaba waa isla galbeen kiina ninka miskiinka magaalada xamaalan jiray baash wala tagta adaa ku haysta abwaane anigu hadda ka hor abwaanka horta saaxiib baan nahay sheekooyinkiisana aad baan u jeclahay runtii marar badan aan u imaadan aad iiga qosliyaa waxa iigu qosol badnayd sheeko hadda ka hor aan ka maqlay oo mataqaan saaxiibkiisa oo ay jaraysan jireen ay jaraysan jireen oo mataqaana ay dhab isku xajaysan jireen oo heerka marka dambe gaadhay inay qasiidooyin iyo ay isku tiriyaan bal sheekadaas abwaane maya waa jirtay sidoo aan sheekadaas way jirtay marka sheeko waxay ahayd nin saaxiibka jaraysan jirnay buu ahaa wama dalika hadde dadka jaraystana sidoo wax ka xujo badanin ama way isforjeystaan oo shaxda way isku forjeystaan marka yaan damba waxaan ku iri markaan ka badiyo marka hadda wax uu soo saaray hadda barnaamij uu soo saaray hadda waxa weeye hadda way xujeeyay hadda xujaadagi wax uu xujeeyay anigu marka maanta damba waxa taala likakan waxaad samaysaa si aad u xujeysid waxaan soo saaray markaan waranka wato baa waxaan soo saaray qasaa'id baan soo saaray in aan rabo in asaga ku xujeeyo marka waxaan ku iri waranka markaan wato waxaan ku iri marka maanta haddaan ka badiyo shaxda ka badiyo wixii ay tiraahdi baan yeelaya adigu wixii aad tiraahdi yeelaysaa waa yeelayaa waa kala saxiixan markaas aan waxaan ku iri qasaa'id habar ayeeyday lahayd oo amaanaha qasaa'id habar ayeeyday lahayd oo amaanaha waxaan ku iri qasaa'idkaan rabaa ila qaadid waranka markaan kala haray waranka asaga kala haray waranka aan qabsaday yaa waxaan ku iri qasiidadan qaad marka sidii maxay tahay hadda qasiida anigu aqaan anaa ku barayaan ku iri sida qof la muslimiin iyo kale diinta islaamka daga waxa duusaaqo waa ku dhibsama baba waxa tiraahdaa allahumma irham goroda fi qaburi nurina fadhu rabbuna goroda fi tahum bima fadhuna fa rabbuna goroda fi dunubi walidina ta inta dhexdo hadda qof wuxuu soo aqoon buu karaa marka la hadda goorta لا لا marka barnaamijkaas inta soo gaabinaya alla ya asxaabteena sharafta leh kaasina wuxuu ahaa abwaankeeni mursal cirfe waa abwaan labada yaqaan runtii degmada jariiban waxa caan ku tahay markii la yimaadana dadka ugu horeyso hal abuurka iyo maasooyinka iyo gabayada iyo ninka loogu yimaado weeye ninka ugu caansanaa oo ugu magaciisa badnaa oo xagga suugaanta boqorka noogu ahaa boqorta galabta idin soo qabtay asxaabteena sharafta leh iyo sidoo kale Cabdiwali Cadaawe saaxiibkaya isaguna laftigiisa nin hal abuur oo abwaanana ah asxaabteena sharafta leh inta barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono sida iyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh